wargeyska The East African Business Week ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay in madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu bilaabay tallaabo uu Somaliland ugu aqoonsanayo dal madax bannaan isla markaana ay ku yeelanayaan iskaashi ganacsi. Wargeysku waxa intaas ku daray wafdi ka socda baarlamaanka Uganda ay joogaan magaalada Hargeysa kuwaas oo socdaal xaqiiqo raadis ah kaga qayb galay sanad guurada 28aad ee madax bannaanida Somaliland 18 May oo maanta ku beegan. iftiimiyeen waftiga ka socda dalkaasi oo hogaaminayo gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Uganda Mr Hood kaasi oo laga soo xigtay hadalaha waxa la gaaray xilligii Uganda ay Somaliland aqoonsan lahayd. East African Business Week waxa uu wariyay in shacabka Somaliland ay rabo qarni u dabaal degayaan gooniisitaagooda kadib markii uu yiri 500,000 oo reer Somaliland ay dileen ciidamadii dawladda Maxamed Siyaad Barre ee dalka Soomaaliya. Sidoo kalena Akura oo xildhibaan ka tirsan gudida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Uganda kana mid ah waftiga ka qayb galay munaasabadda 18 May ayaa sheegay in Jamhuuriyadda Somaliland ay buuxisay shuruudihii looga baahnaa wadan madax bannaan waxaanu ku dooday inuu la yaabay sababta dalkani uu cilaaqaad ganacsi u yeelan waayay dalal badan oo Afrika ka mid ah. Warsidaha East African Business Week waxa uu qiray inay ka jirto Jamhuuriyadda Somaliland dawlad dimuqraadi ah isla markaasina ay leedahay lacag u gaara 28 sano ee la soo dhaafay. mudooyinkan dambe ayaa waxa hadalhaynta warbaahinta caalamka ku soo badanaya qadiyada madax bannaanida Somaliland oo muddo 28 sano ah dal madax bannaan ah kaasi oo 1998 May sheegay in xorriyaddii 60kii ay kula midoobeen gobolladii koonfureed ee dalka Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysan jiray ay hadda dib uga soo noqdeen isla markaasina ay yihiin dal iyo jamhuuriyad madax bannaan. Saciid Faarax Aqjar, wararka Royal TV, Hargeysa.